tirada dhimashada corona ee Talyaaniga oo ka badatay tan Shiinaha. Xanuunka corona ayaa dalka Talyaaniga ku dilay dad ka badan inta uu ku dilay dalka kale ee caalamka kadib markii maalin kaliya ay dalka ku dhinteen dad gaaraya 427 qof. Tirada dhimashada ee dalkaasi ayaa haatan maraysa 3405 qof, taas oo ka badan tirada dadka ku dhintay dalka Shiinaha oo halka markii hore uu ka bilowday. dalka Shiinaha ayaa waxa uu xanuunkan ugu dhintay 3245 qof, balse waxaa su'aal la gelinayaa saxaashaha tiradaas maadaama aysan jirin cid si madax bannaan u xaqiijin karta. dhammaan shacabka dalka Talyaaniga ayaa lagu amray inay guryahooda ku nagaadaan inkastoo ay jiraan talaabooyin ay soo rogtay dowladda. haddana waxaa la soo sheegay in ay jiraan dad weli u dhimanaya xanuunka, waxaana guud ahaan caalamka ugu geeriyooday dad gaaraya 9,000 oo qof cudurkan coronavirus. dowladda Shiinaha waxa ay sheegtay in aysan jirin kiisas cusub oo lagu arkay gudaha dalkaasi, balse ay jiraan dad qaba xanuunka oo Shiinaha uga yimid dibadda. hase yeeshee tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ayaa aad uga badan tan Talyaaniga oo dalkaas waxa uu xanuunka haleelay 81,000 halka Talyaanigana uu marayo 41,035 qof. dowladda Talyaaniga ayaa soo saartay amar lagu xidhayo dhammaan goobaha ganacsiga iyo meelaha ay isugu yimaadaan dadweynaha si loo yareeyo faafidda xanuunka corona. baararka, maqaaxiyaha iyo inta badan dukaamada ayaa la xidhay, waxaana sidoo kale albaabada la isugu laabay iskoolada iyo jaamacadaha. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in taas ay yareynayso xanuunka iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo. Lombardy oo ah gobolka uu saameynta ugu badan ku yeeshay caabuqan ayaa laga soo tabinayaa 319 dhimasho ah oo hal maalin gudaheed ah. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in isku darka tirada guud ee ku dhacay caalamka oo dhan ay kor u dhaaftay 220,000 oo qof. dalal badan ayaa tallaabooyin u qaaday sidii ay u xakameyn lahaayeen cudurka sii faafaya. waxyaabaha la saameeyay waxaa ka mid ah in la mamnuucay kulamada dadweynaha iyo safarada, laakiin in si dhab ah loo xakameeyo cudurkan iyo safmarkaa waxay ku xidhan tahay in dalalku ay karantiilaan dadka, baaritaanka joogto ah ay sameeyaan, kuwa laga helana ay daweeyaan, ayuu yidhi madaxa WHO. bangiga dhexe ee Yurub ayaa lacag dhan 820 bilyan oo dollar u qoondeeyay wax ka qabashada saameynta xanuunka coronavirus ee saameeyay dhammaan caalamka idil.